munaasabadana bilowga dhismaha jidkan oo lagu qabtay tuulada magaalo yar oo ka tirsan gobolka Togdheer waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Cali Saciid Raygal wasiir ku-xigeenka wasaaradda ganacsiga Bashiir Cabdi Xariir maarayaha hay'adda wadooyinka Soomaaliland Xasan Cali Cismaan xubno kamida guddida dhismaha wadada Ceerigaabo gudoomiyaasha gobolada Togdheer iyo Sanaag waxgarad salaadin iyo xildhibaano adala kooban oo halkaasi uu ka soo jeediyay gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamed Muuse Diiriye ayaa waxa uu tilmaamay inuu si weyn ugu faraxsan yahay isla markaasina waxa uu farta ku fiiqay faa'iidada dhabta ah ee ku duugan jidkan isagoo tilmaamay in shacabka ku dhaqan guud ahaanba Soomaaliland gaar ahaan gobolada Togdheer iyo Sanaag ay si sahlan isugu gudbi doonaan iyadoo hore dhibaato iyo rafaad badan ay kala kulmi jireen jidkan waxaanu mahad ballaaran u soo jeediyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland oo tilmaamay inuu si dhab ah u hirgeliyay ballanqaadkii uu shacabkan u ballan qaaday inuu dhisi doono jidkaas ku xidha Ceerigaabo iyo Burco gudoomiye Maxamuud Cali Saleemaan Ramaax gudoomiyaha cusub ee gobolka Sanaag isagu la kowsaday bilowga jidkan iyo la wareegista xilka barsaabnimo ee gobolkaasi ayaa aad iyo aad u soo dhaweeyay waqtiga ay ku beegantay oo uu tilmaamay inuu u soo jeedinayo shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag inay si gaar ah hiil iyo hoob u la garab istaagaan dhismaha jidkan ee xukuumadda Soomaaliland ay bilowday Ibaan Reegal oo kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee ka soo jeeda gobolka Sanaag ayaa dhawaaq dheer isaguna ku gaarsiiyay shacabka ku dhaqan gobolka Sanaag in ay heel iyo hoob ah ay la garab istaagaan isla markaasina ay si gaar ah waxtar iyo wax la qabashada ay ula wadaan mas'uuliyiinta iyo howlwadeennada wada dhismaha jidkan oo ah mid si gaar ah faa'iido ugu leh shacabka ku dhaqan gobolkaasi Marwo Sacdiya Aw Muuse iyo Faarax Xasan Jagac oo kamid ah guddida dhismaha oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa Marwo Sacdiya oo ugu horeyn halkaasi ka hadashay waxay farta ku fiiqday in hadiiba ay jiraan dad warwar ka qabay hirgelinta dhismahan in maanta si rasmi ah loo bilaabay isla markaasina ay limin laabaan oo kor u qaadaan qaranka iyo ka qayb qaadashada dhismaha wadadan bilaabmaysa la lahaa wata bilaabantay halkan ay ka bilaabantay Ceerigaabo ay ka bilaabantay dadweynihii shaki kugu jiray waxaan u sheegaynaa wadadii inay maanta bilaabatay hadii Ilaahay yiraahdana waxaanu Ilaahay ka baryaynaa dhamaadkeeda inaynu wada joogno dadweynaha waxaanu la socodsiinaynaa in qaaraankii la dardargeliyo kuwa dalka jooga iyo kuwa dibadda jooga labadaba waxaanu idin ballan qaadaynaa shilinka bixisaan inay meel kale gali wadada mooyaane Xasan Jagac oo isaguna la hadlayay qurba jooga ku dhaqan guud ahaanba dalka dibadiisa ayaa tilmaamay inay si rasmi ah u bilaabantay maantana la sugayo inay mar kale iyo mar saddexaadba ay si ballaaran uga qayb qaataan dhismaha iyo hirgelinta wadadan Ceerigaabo anigu waxaan kamid ahay guddida wadada Ceerigaabo ee UK especially London waxaan jeclahay inaan halkan ka gaarsiiyo wadadii way bilaabantay ballanna waynu lahayn hadaynu reer UK nahay lacagtii waa inaynu soo shubno wixii aynu haynay runtiina xalay baa ila soo hadlayseen oo weydiinayseen waa ilaahay ma haddaan goob joog maanta ka ahay alxamdulillaah rabbil caalamiin oo aan idinka soo warrami doono dhammaan waxaan gaarsiinayaa qurba jooga meel kasta ay joogaanba ballankii wadadii waatan oo waa arkaysaan inay bilaabantay inaynu la jaan qaadnay ahayd wixii laynaga sugayay soo shuba aad iyo aad baan dhammaan idinku wada hadnaqayaa gidi maarayaha hay'adda wadooyinka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Xasan Cali Cismaan oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa tilmaamay inay saaka ka bilaabantay oo si rasmi ah uga bilaabantay saddex goobood oo kala ah tuulo yar Ceelaf Weyn iyo magaalada Ceerigaabo taasi oo uu tilmaamay in uu ku faraxsan yahay bilowga hamigii iyo hiigsigii dhismaha wadadan wasiirka wasaaradda madaxtooyada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan munaasabadaasi hadal ka soo jeediyay ayaa farta ku fiiqay in dhismaha jidkani uu kamid ahaa ballanqaadyadii xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ay hore ugu ballan qaaday isla markaasina ay badankoodu fuleen waxaanu shacabka Soomaaliland u diray fariin tilmaamaysa in 100 kiiloomitir ee ugu horeeya ay si rasmi ah u dhammaan doonaan dhaqaalahoodina gacanta ay ku hayaan lana mid noqon doonaan ballanqaadyadii hore ee fulay wasiirka wasaaradda
madaxtooyada ee jamhuuriyadda Somaliland waxa kale oo farta ku fiiqay in xukuumadda Somaliland ay dhismayaal kale oo jidada ay ka hirgelisay dalka kuwa kalena ay shacabkooda iyo guud ahaanba dadkeeda ay kala qayb qaadatay wasiirka oo ka hadlaya ayaa arrimahaasi waxa hadaladiisii ka mid ahaa dawladda Siilaanyo ballanqaad ay ballanqaado ka dhabaysaa koow maaha horaan u ballanqaadnay oo dawladdu madaxweynuhu hogaaminaya madaxweynuhu ballanqaaday oo aanu ka dhabaynay mar maaha laba maaha saddex maaha wax badan oo lala yaabanaa ayaa markay dhamaadeen wax weeye la rumaysta sidan maalintii Ceergaaba aan joogay ka iri kala haabaan maantana leh it seems always impossible until it's done ayuu ninkii la oran jiray Mandela yiri always shayga leaderka u muuqda ama qofka hogaamiyaha u muuqda it seems always impossible had ya jeer waxay ugu muuqataa dadka caadiga impossible ilaa la qabto oo arkaan iyadoo la qabtay waxa la arki doonaa wadada Ceergaabo la qabto dhameystiran insha Allah taala haday tahay wadooyinka koow nooma aha booramaanu bilowno waa dhamaynay wajaalaanu bilowno waa dhamaynay tanaanu anagan wadno waa dhamaynayna kuwa kale badanna way socdaan oo ay bulshadu is agaasintay anaguna gacan xoog la ka geysanay joojin mayno cid kasta oo dadaashana waanu la qabanayna insha Allah taala inta awooday u tahay laakiin se wadada Ceergaabo iyo togdheer isku xidhaa muhiimadda ay leedahay darteed yani dheer tahay inay isku xidho goboladii dalka yani 38% dhulkeena oo bilaawada aha ay ku xidho inta soo degmo iyo inta soo gobol yani ay isku xidhayso ay importance ay leedahay midda dhaqaale midda nabadgelyo midda istaraatiijiyadeed midda bulsho ay leedahay darteed baa runtii muhiimadda gaarka loo siinayay in cid kasta oo runtii ka qayb qaadatay oo ama farsamo ka qayb qaadatay ama dhaqaale ama tala ama dhiirigelin aad baan ugu mahad celinaynaa gudiga wadada nagala shaqeynayay bilowga jidkan ayaa noqonaya ka dhabaynta iyo ka himilo dhalinta ballanqaadkii xukuumadda jamhuuriyadda Somaliland ay ballan qaaday ka hor doorashooyinkii dalka ka dhacay 2008 xilligaas oo madaxweyne Axmed Siilaanyo uu ballan qaaday horumarin ay ka mid tahay dhismaha jidkan Ceergaabo isla markaasina markii ugu horeysay la dhagax dhigay 16 bishii sagaalaad ee sanadkii 2012 isla maantana si rasmi ah loo bilaabay si kastaba ha ahaatee waxa ay noqotay guulo rasmi ah oo u soo hoyday dalkan jamhuuriyadda Somaliland marka la eego dhismaha bilowga jidka magaalada Ceergaabo Cabdi Casiis Maxamed Maydax telefishinka qaranka Somaliland Burco